maadaama aan kamid ahay dadkii soo gaaray oo bartaan xataa lagu baashaali jiray biga kooda luuli la dhihi jiray 26 Juun aad loo muxusi jiray kooda luuli aad loo muujin jiray calanku waxa uu astaan u yahay jiritaanka iyo madax banaanida qaranka marka uu calanku babanayo waxa uu muujinayaa in wadankaasi leeyahay dawlad dad iyo dhul u gaar ah oo sharci ah xafiisyada dawladda maxkamadaha iyo iskuulada waxaa laga taagaa calanka si loo weyneeyo loona muujiyo jiritaanka dawladnimada iyo sharciyada Maxamuud Cusuble Maxamed waa wadani waaye joog ah oo jecel calankiisa waxa uu calanka ummadda Soomaaliyeed u arkaa astaan sharfan ma jecla in lagu ciyaaro ama lagu xadgudbo maalmihii xurriyadda waxa uu si weyn u qabsaday baraha bulshada asagoo dowladtus ku sameeyay mootadiisa si uu u dhiirigeliyo dadka kale calanka ayna u weyneeyaan Maxamuud ayaa ku jeesteeyay si qurux badan maalmahaasi asagoo markaasi soo bandhigayay dareenka iyo qiirada wadannimo ee uu qabo in uu calankiisa maamuuso sarana u qaado Maxamuud ayaa ii sheegay in marka uu arko calanka dalkiisa uu dareemo isla weyni qarannimo iyo mas'uuliyad ka saaran dalkiisa sidoo kale waxa uu dhiirigeliyaa in heesta calanka si sharaf leh loo qaado loona weyneeyo tixgelinta calanka kama koobna oo kaliya erayo balse ficil ayuu leeyahay sida uu muujiyay Maxamuud Cusuble oo kale wuxuuna mootadiisa ku xirtay calanka si uu muujiyo qiimaha uu agtiisa ka leeyahay si lamid ah Cusuble ayaa ku xarakooda calanka si milga leh ayuuna u dhowraa qiimihiisa Masar Cusuble waxa uu dadka barayaa qiimaha calanka iyo sababta ay muhiim u tahay in la xurmeeyo aan kamid ahay dadkii soo gaaray oo bartaan xataa lagu baashaali jiray biga kooda luuli la dhihi jiray 26 Juun aad loo muxusi jiray kooda luuli aad loo muujin jiray marka waxaan ugu talagalay munaasabadahaas in dhalinyarada jiilka soo socda ay bartaan in dalkoodu leeyahay munaasabad qaran sida ogeed waxaan ku muujiyay calankeyga qaranka oo darkaysan galabtaba ii saaran anoo 70 jira berigaasna aan joogay ilaahay amarkiis xilligii oo 60kiina aan jiray muddo adiga 9 sano ku dhaan maleynaya marka amrigaas ilaahay gaarsiiyay ayaa waxaan leeyahay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin guusha barwaaqada gugayga sumayo maana geeriyoon ayaan leeyahay calanku waxa uu ka mid yahay astaamaha ugu sareeya astaamaha qarannimada sida darteed dhowristiisu waxa uu waajib ku yahay muwaadin kasta oo Soomaaliyeed inaad muujiso dareen wadannimo oo markaasi ka turjumaya heerka ugu sareeya ee farxadaada waa mid ka mid ah waxyaabaha lagu dareemo inaad tahay muwaadin jecel wadankiisa haddana ku faanaya Maxamuud heerkii ugu sareysay ee awoodiisa ayuu ku soo bandhigay inuu yahay muwaadin wadankiisa jecel asagoo aad ka arkartaan inuu ku xirtay gaarigiisa si maalinlaana waxa uu u sitaa calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Farxad Abdi Tarabi warbaahinta gobolka Banaadir Muqdisho